tobankii xildhibaan ee ka tirsanaa golaha wakiilada ee Somaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil oo muddo 6 maalmood safar shaqo u joogay gobolka Saaxil ayaa habeennimadii xalay waxay soo gabagabeeyeen safarkoodaasi waxaanay warbaahinta uga warameen waxyaabaha uu daaranaa socdaalkoodaasi iyagoo sidoo kalena sheegay inay baahiyo ay ku arkeen goobahaasi ay booqdeen ay la wadaagi doonaan wasaaradihii ay khuseysay arrimahaasi. maalmahan u dambeeyay waxaan ku sugnay gobolka Saaxil oo anagoo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Saaxil oo dhan tobankayagiiba ujeedada socdaalkayagana wuxuu daaranaa saddex wax. ta koobaad inaanu dadkii na soo saaray noo gortay inaanu golaha wakiilada u matalo inaanu u mahadnaqno oo aanu mahadnaq ballaaran u jeedino. ta labaad inaanu samayno xiriirkii shaqo ee aanu la lahayn wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan. ta saddexaad oo ah inaanu haddii allaba ku roon yahay wixii carqaladeed jira iyo wixii cabasho ee jira ee ku saabsan xagga hay'adaha iyo xagga shacbigiina soo doortayba aan u kuurgallo. arrimo noocaas ayaanu ku hawlanayn. hawlgalka aanu gallay waxaa hawlgal aad iyo aad u wanaagsan, dadkina aad iyo aad u soo dhaweeyeen in xildhibaanadii ay doorteen iyagoo wax badan ka maqnayn ay ku soo noqdeen gobolkoodii iyagoo u mahad celinaya u mahadnaqaya. ugu muhiimsanaa meelahaanu booqanay ee booqashadu ay khuseysay waxbarashada, caafimaadka, arrimaha aasaasiga ah ee ka jira waddanka inaanu eegno, dadkana cabashadooda dhegaysano. kolley socdaalkayaguna ma ahaan doono maanta oo qura wuxuu ahaan doonaa socdaal haddii la yidhaahdo joogto noqda markastoo aanu fasax yeelano inaanu tobankayga xildhibaanba runtii isu soo raacno isla markaana doorka aanu ku leenahay ka xildhibaan ahaan aanu ka qaadano gobolkiina laga soo doortay ee gobolka Saaxil. aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadweynaha reer Berbera iyo reer Sheekhba ee gobolka Saaxil sida iyadoo sanadkan barwaaqaduna u badan tahay runtii marka la eego gobolka Saaxil aad ugu badan tahay marka laga soo bilaabo degmada Sheekh magaalada Sheekh leeyahay ilaa iyo galbeedka si fiican roobku heleen dadkii hawd ka imanayay oo dhamina ay u soo guurayaan. markaanu aragnay inay dadkii hawd ka imanayay oo dhamina u soo guurayaan xagga waqooyiga aadna waxaan dadka ugu boorinaynaa in la soo dhaweeyo dadka ka imanaya gobolada Togdheer iyo Togdheer bay u badan tahay in dadka soo guurayaan si meelaha beerahana dhul daaqsimeed loo fasaxo loo ogolaaday in dadku beeraha degaan ilaa xeebba laga yaabaa in sidii sanadii hore loo soo daaqtago. sida dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayo golaha wakiiladu waxay qabtaan saddex shaqo. shaqada koowaad waa tii aanu ka qabanaynay gurigii aanu fadhinay aan ku shaqayn jirnay oo ahaa inaanu xeerar dejino aananu kalfadhigii ugu dambeeyay ku soo shaqaynaynay. shaqadeeda labaad waa inaanu dawladda kor joogtayno oo aanu check and balance ka shaqeyno. ta saddexaadna waa taan aanu hadda u joogno oo ah inaanu matalaad dhaba u samayno dadweynaha gobolka Saaxil. gobolka Saaxil waxaad yara moodaa malaha inaanu ku badnaan jirin golaha wakiiladu. runtii shakhsiyan iyo tobankayga golaha wakiiladii qaabka ay u arkeen madaxda joogta gobolku waxay yara ahayd arrin aad u yara cajiiba oo yara muuqatay malaha gobolku inaanay tobanka ay u doorteen ee Hargeysa u fadhiyaane aanay Berbera shuqul ku lahayn. taasina aad bay uga duwantay saxa. gobolkan cid laga doortay oo ugu sareysa waxaa jira 10 qof ee ugu jooga golaha wakiilada. cidna u weydiisan mayno fasax haddaan u imanayno, cidna u soo mari mayno, cidna waqti gaar oo aan u weydiisanayno male. habeenii maalin waa imanaynaa, dadka guryahooda aanu iman doonaa, daaradahooda aanu kula shiri doonaa. kii cabanaya xaq buu noogu leeyahay inaanu cabashiisa dhageysano. waaye ma intii aanu joognay waxaanu arkaynay dhawaaqyo kala duwan oo ka soo baxayay degmada iyo gobolkaba. annagu waxaanu mar walba taagannahay in aanu la shaqayno maamulka gobolka, inaanu la shaqayno maamulka degmada, inaanu ka kala shaqayno marnaba diyaaru nihiin. ayagana waxaanu u soo jeedinaynaa hadday noqoto maamulka degmada iyo hadday noqoto maamulka gobolkaba ummaddu waxay u baahan tahay in loo shaqeeyo. waxba macna samayn mayso maaragtay ku yooyootamaan bulshada dhexdooda. haddii aan kelmad idhaaho degmada waxaa ugu sarreeya golaha deegaanka waxaanu u soo jeedinaynaa inay danaha iyo wanaagga iyo horumarinta bulshada ay codkooda ku fadhiyaan inay mid u noqdaan. sidoo kalena barasaabka gobolkana maadaamuu yahay madaxweynaha gobolka waxaanu asagana u soo jeedinaynaa tabashooyinka jira meela aanu annagu gadaal aanu u dhignay inaanu ka hadalno. waxaanu u soo jeedin lahayn asaga laftigiisu inuu doorkiisii maamul qaato, inuu qaato mas-uuliyadda gobolka ka saaran maadaama oo uu yahay xubinta ugu sarreysa gobolka. gobol walba maanta waxaa ka jira mushkulaadka ka jira, midna way wadaagaan midna waa u gaar. wixii u gaara ee gobolka Saaxilna halkay qusayso waa geyn doonaa. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, wararka telefishinka Saab, magaala xeebeedka Berbera.